السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داودايان مركز الدنيا دافية كجوجتا ومركلاي كليب عصب halkaan naga daawanaysan waa bartaan youtube-ka ku leenahay hada fashion walaashin hodana idin la soo dhawaada dhamaantiin asxaabtada qaaliga kuwa hore iyo kuwii hore iyo kuwa dambe waxaan leeyahay dhamaantiin soo dhawaada inta kadib caa waxaan idin wadanba nin bariyaha sa social media loogu bunbuuninayay oo laha kula leeyahay afar xaas la weeyaan social media saa u haystay kula leeyahay waxaan ku wari dilaa weeyaan marba wax lagu teegi tilmaamaya ama lagu beegsanayo laakiin bal waxaan rabaa inaan afar midho fikirkayga ka dhiibto bal video halkan oo aan inoo hayana aynu wada daawano balse laakiin inta aynaan daawan waxaan idinka codsanayaa asxaabtada qiimaha iyo qadarinta badan haddaad channelkayga ku cusub tahay subscribe inaad noo saartid kambalelkana furatid si aad nooga mid noqotid aad baad ugu mahadsantahay anigu waxaan ka mid ahaa wariyaashii idaacadda radio muqdisho ka shaqayn jiray xilligii dowladdii hore ee Soomaaliya magacayga waxaa la yiraahdaa Saciid Aadan Cali Saciid Anteena la yiraahdaa waxaan ka shaqaynayay radio muqdisho ayaamihii ugu dambeeyay ee dowladdii Soomaaliya ay burburaysay waxaan joogay toos u joogay idaacadda radio muqdisho iyo xafiiska madaxweynaha الله ونحرسته محمد سياد برة وعن جعله مركا تطفر بدن أو دنيا دعالة ذيك الدول جوع أيام يسوع أيامها كانوا أردن وعين الربينين وحكوا قادان ذلك لايي ورياشي راديو مقدشو يضو dilkaasi uu geystay ninka la yiraahdo Taake hadda la soo dhigay Facebook-yada ku jira oo la leeyahay afar naagood buu guursaday magaciisana bedelay oo Sufyaan la baxay waan markii hore u taaseenaya eheladii ay dadkaasi wariyaashaas ay ka dhinteen oo la laayay waan markaa idin bayaaninayaa ninkan sababta uu u dilay dadkan ma ahayn wax qabiil la xiriira ee arintu waxay ku la xiriirtay idaacadda radio muqdisho ayuu rabay inuu ninku ka shaqeeyo wuxuuna ka mid ahaa askartii ee mataqaanaa ee meesha timi oo la socotay generaal maxamed faarax kolley waan wada arkaynaa waxaba la leeyahay waxa weeyaan nin dilaya subxaanallah horta dilka iyo inaad qof dhan nafta ka jartaa runtii aad bay ugu fududahay waddankeennii marka loo fiiriyo wadamada kale ama loo eego runtii waxaa lagu sheegayaa inuu dadka qaar tiro waxay ku sheegayaan afar qof laakiin bal waynu dhageysan doonaa waynu ku socon doonaa waxa uu sheegayaa waxa weeyaan waqtigiisii aad barre dhici doono isaguna wuxuu yiri waqtigiisii aad barre waxa aan joogay magaalo magac ku sheegay bal kilib kale ayaan isaga ka sameyn doona ama aan barbar dhigi doona marka uu leeyahay halkaas aan joogay halkaas oo laba kala hadal afkiisa laga hayo ayaa jirta haba sahaatay ma xuma horta ninkan afar xaas leh ama Taakeeye ama Sufyaan kolba ka doontid ba waqoonawo horta ma wuxuu haystaa calanka Soomaaliya ayuu lahaa waan bedelay okay calanka Soomaaliya waan bedelay ayaa waxa u keentay inuu dad u dilo u laayay hadda maanta la inoo sheegay waxa ayaan daraa qofku marka aanu ogeyn inuu yahay qof dambiile iyo inuu yahay qof aan dambiile ahayn marka ay ku adag tahay inuu ogaado wuxuu yahay ama taariikhdiisii dambe dib u raaco horta calanka Soomaaliya ayuu rabay inuu bedelo ama wadamada reer galbeedka u soo adeegsadaan ama shakhsiyaad isaga u gooniyo la xiriira u soo adeegsadaan inta kaliya aynu ka noolnay ama aynu ku noolnay waxa weeyaan calanka buluuga intii kala dhan way naga dhimatay haday damiir noqoto uu dhintay haday noqoto Soomaalinimo way dhimatay haday noqoto damiir ay Soomaali lahaan jirtay way dhimatay intaasoo wax aynu lahaan jirnay ama astaan inoo ahaan jirtay way dhimatay kaliya hal astaan bay noo hadhay
halka astaan ee inoo hadhayna waxa ahayd keliya ta calankaas Soomaaliya tiina waa taasoo ninba loo soo diro la yiri weerar waxa inoo khusar daraa ama inoo dimir daraa inaynu dhageysano oo aynu intaasoo layga siino oo aynu rabno inuu social media ku baahanin kani ama uu ku baahanin kani marka uu afarta xaas soo dhigayo waxa uu ogaaday pointiga Soomaalida marka waxa la dhex keeno aad ay u hadal hayn karaan markuu pointigii keenay afar xaas leh ayuu haddana fikirkiisii ahaa calanka Soomaaliya bedelaya ayuu halkii ka sii watay maadaama uu arkay in bulshada soo hal mar wada hadal qabatay ama afka lagu qabtay anigu wala waan aaminsanayn inuu afar xaasle uu yahay afar xaase uu ku leeyahay meesha inkastoo aanan ogeyn anigu ama si aanan u qirsanayn maadaama ay waqtigan aynu joognaa ay tahay waqti aan laba la isku hayn karin ay tahay waxaan aaminsanahay ama aan ogahay inay waxaan tahay wax uu rabo inuu social media ku soo galo habase haddii taab topiga ka hadlaymayna caawa laakiin topiga aan ka hadlaynaa waxay tahay nin dilaaya sideebu ummadan intuu soo hor istaago u leeyahay waxa aan rabaa calanka Soomaaliya inaan bedelo oo din gaalo ayaa ku dhex jirta su'aashaas baan aad maskaxdayda isku weydiiyay ama aan aad ugu soo noqnoqotay maskaxdayda wala waanan waqti u helin aan kaga hadlo laakiin kaliba badan ayaan ka soo sameyn doonaa oo aan runtu halka ay tahay aan abaari doono calanka Soomaaliya dad badan baan taariikhdeeda garanayn halku ka yimi aan garanayn laakiin dad badan baan u bayaamin doonaa insha Allah billahi kariim laakiin waxa rabaa inaan ku socdo ninkani bal dadka uu leeyahay maadaama uu social media ka maqlay inay tahay afar balse laakiin isaga ayaa raba halka uu ka sheegayo inaan ku sii socdo hadda la soo dhigay facebookyada ku jira oo la leeyahay afar naagood buu guursaday magaciisana bedelay oo Sufyaan la baxay waan marka hore u taaseenaya eheladii ay dadkaasi wariyaashaas ay ka dhinteen oo la laayay waan marka idin bayaaninayaa ninkan sababta uu u dilay dadkan ma ahayn wax qabiil la xiriira arrintu waxay la xiriirtay idaacadda radio Muqdisho ayuu rabay inuu ninku ka shaqeeyo wuxuuna ka mid ahaa askartii mataqaanaa meesha timi oo la socotay generaal Maxamed Faarax Aydiid Allah u naxariiste wuxuu jeclaystay inuu idaacadda ka shaqeeyo dad baa marka waxay ku yiraahdeen sidaan anigu waan maqlay inta nimankaani joogaan niyo waxba noqon maysid waa inaad nimanka iska hor leexisa masala basiida buu ku dilay ilaahay naxariistiina ka waraabay raggaas uu laayay way kala duwanaayeen waxa kamid ahaa Abuukar Maxamed Nuur Abuukar wariya la oran jiray nin fiican buu ahaa sheekhaal buu ahaa waxaan anigu isdiidsiinaya qabiil inaan afkayga ka sheego يعني أنا مستحيل بيرتين قبل الصغار لكن ما أنت وحنو شيء إن عندك الصومالية روح عضيو وحكن سيدي أهاين نكا مركل الدلي أبو بكر محمد نور وهو هانين شيخال أبوها نكا كلا ودلي وحل أورنجري إلهي نحرس جنو أكورابيه عبد القادر علي إدلي أقاسمه أها إذا عدر يدي ومقدشوا عبد القادر علي إدلي waxa isaguna uu ka soo jeedaa beesha xawaalaha la yiraahdo xawaalu ka soo jeeda waxa kamid ah dadka uu laayay ninkaani mahad aadan baa kamid ahaa xasan mahad aadan xasan wuxuu ahaa reerka la yiraahdo ugaadeen buu ahaa cabdi sheekh ali ayaa isaguna kamid ahaa cabdi sheekh ali wuxuu ahaa nimanka la yiraahdo Arab Saalax ama reerka Arab Saalax la yiraahdo ayuu ahaa waxa kamid ah ninka la yiraahdo Cabdi Xange waa nin isaguna wariyay idaacadda radio Muqdisho waxayna walaal rasmi ahaayeen Cabdul Qaadir Juula oo isaguna ka tirsanaa jiray radio Muqdisho ninkaas ayuu la walaalaha ninkaas Allah u naxariisto raggaas shanta isaga ayaa dilay ninkaas magacyada bedelanaya oo marna Abu Sufyaan baan ayle
hadda sida lagu helay oo ku soo baxay weligiis lama helin allah subxaanahu wa tacaala sarreeye ilaahay baa ka shifay waayo xaq islaameed iyo dad islaameed buu dilay rabbi waa soo saaray isagii baa iskeenay oo dood iyo cilaaq u soo istaagay oo inuu gabdho soomaaliyeed oo masaakiina afar hal mar wada meersado oo uu mataqaanaa ismuujiyo oo isagoo la baxay sufyaan oo isu ekaysiinaya muslin isu ekaysiin dhiigii cab weeye dad buu laayay masaakiin buu laayay rag wariyaala aan waxba galabsan buu laayay yacni wax weyn buu galay jariimad buu galay isaguna sahal iyo cayaar iyo nimankaani way iga cod fiican yihiin iyo nimankaani intay joogaan anigu wax noqon maayo iyo buu ku dilay marka aad dhagar gasho ama aad dhiig gasho dhiigu dhagar qaba ma maqasheen dhulka ayaa u dhaqdhaqaaqa runtii dhiigga bili-aadanka subxaan allah ilaahay waa quwad uu siiyey qof dhan oo la dilay miyaanad arag qof dhan oo la dilay oo dilaagii dilay aan la garanayn meeluu joogo balse laakiin hal masalad basiidan yani wax yar oo basiida ayuu isku soo bandhigaa oo lagu ogaadaa qofka haddaba dhiigu dhagarta meesha lagu galay 10 sanaad sheegta 50 sananaha kasoo wareegtay qofkii qof dila inuu la helayaa ma la ogaanayo taas ha la wada ogaado halka aan ku ogaa tirada 4 nin baan maqlayay laakiin tiradu hadda waxay noqotay 5 nin subxaan allah nin 5 nin dil horta wejigan laakiin wejiga noocani ya dad inuu liqay waa la arkaaba ilaahay isaga casaa wajalaahi ha soo hadeeyo waxaan oran lahaa hal talaayaan ku tarsan lahaa oo fikirkayga ah haddii aad tahay qof dilaaya oo aad tahay dilka lagugu sheegaya uu yahay dhab waxaan fadlan kaa codsanaya ilaahay xaggiisa khayr baad ka helaysaa oo waxaa laga yaabaa inuu dembigu kaa yaraado haddii lagu qisaaso marka haddii aad tahay qof dembiilaa oo odayga weyni waxa uu sheegaya ay dhab tahay wariyaha dhari wuxuu sheegaya ay dhab tahay waxaan kaa codsanaya inaad isku dhiibto wadan waxaad joogtaa kala dambeyn leh waxaad joogtaa wadan Kenya sanooga Kenya joogtaa marka waxaan kaa codsanaya in aad isku dhiibto dawladda Kenya maadaama oo lagu leeyahay qof dilaaya baa tahay oo adna ogtahay waxa tahay anagu ma ogin waxa tahay laakiin adiga ayaa is og waxa tahay waxaad lahayd wadan dhan rog oo kala qalb rog laakiin Allah subhanahu wa ta'ala lagama dhuuman karo haddaad isleedahay bilaadan ka dhuumo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku jeedaa kama dhuuman kartid marka waxaan ku leeyahay wixii jira adiga ayaa og xaqiiqada ugu badanina aday ku saaran tahay ama baawarka ugu weynee tooshashka lagugu ifinayaana aday ku saaran yihiin dembiga ama waad iska duwi kartaa haddii aad dilaa ahayn ilaah baa naga og xaaladan ilaah baa naga og laakiin haddii aanad dilaa ahayn dadka u soo bandhig in aanad dilaa ahayn oo waxa la sheegaya aanay waxba kaba jiraan ahayn oo maxkamad qabso oo ha kugu cadaado inaan warkaas wax war jiraan ahayn si hadduu war jira yahay bifadlan waxaan kaa codsanaya waxa jirta dembiga waad galaysaa dembiga aad gashid haddii aad qiran weydo waxay kugu tahay 2 dembi waad gashay waana waliba sii qarisay marka si laakiin aad qiratid hal dembigu kugu noqonaya marka waxaan ka oranaya haddii ay dhabtay wax la sheegaya in aad dawladda isur dhiibtid oo gacanta isku gelisid aad baan idin salaamay asxaabteeda qaaliga waxaan idin leeyahay halkaas guntii iyo gabagabadii kusoo gabagabeynaya barnaamijkan haddii aad wax fikira ka qabtid wax fikira dadka qabtid committee-ga noogu reeb aad baad ugu mahadsan tahay daawashadaadii waqtigaadii daawanaysidna waan kaaga mahad celinayaa waxaan idin leeyahay intaynu kan mid xiga ku kulmi doono oo walaashan hodaro idin leh aad baad ugu mahadsan tihiin Instagram-kaygina waa kan wixii fariimaa waad igu soo reebi kartaan waxyaabaad la qaybsan kartaan ama aad oran kartaan YouTube-ka ka bedel waxyaabo badan haddii aad doonaysaan in aan ka bedelaamo YouTube-ka ha noqoto ama aniga shakhsiyan haygo qusaysabo oo yani shakhsiyan isu weydiisaan waxaan leeyahay soo follow gareeya Instagram-kayga igu soo darsada wixii fariin noo diireebi kartaan aad baad ugu mahadsantihiin daawashadaada daawanaysaan waxaan idin leeyahay